heshiis sharci ah oo dhex mara lamaane qaangaara oo isla gartaa ama dhaqamada qaar la isu dooro inay nolosha wadaagaan. guurka oo asaaska qoyska waxa uu ku dambeeyaa farxad marka lamaanaha isguursadaa ay ku wada noolaadaan farxad, is-aamin iyo daacadnimo. laakiin dadka guurka ka faallooda waxay qabaan in guurka wanaaggiisa uu marar badan ku xiran yahay doorashada lamaanaha aad nolosha wadaagaysaan. haddaba muxuu qofi ku dooran karaa lamaane? waa qodobka doodeenna gaaban. waxaa doodu ay dhex maraysaa Maxamed Xaaji Xuseen Raage oo ah saxafi wax ka qora arrimaha ciyaaraha oo degan dalka Sweden, iyo Idil Axmed Maxamed oo ah gabar Soomaaliyeed oo degan magaalada Boosaaso, gobolka Bari ee Puntland. waxaanu ku horeynaynaa Idil Axmed. runtii maxay tahay adduunyadan aan ku noolnahay wadamada tan caalamka waxay leeyihiin dhaqamo kala duwan, laakiin hadda usoo noqon inaka Soomaalida waxaan leenahay diin. runtii diinteennana waxay sheegtay qofka in lagu dooran karo 4 maado, taas oo ah inuu qofku diin leeyahay, inuu nasab leeyahay, inuu hanti leeyahay. runtii ani marka iska hadlo ka idil ahaan marka iska hadlo runtii shakhsiyad aan ka hadlo, runtii waxay ila tahay inaan qofka ku dooran lahaa aqoon. waayo aqoontaas oo laba noqon karta, mid waxay noqon kartaa aqoon maadi ah, midna waxay noqon kartaa aqoon diini ah. waayo aqoon diini ah qofku marka uu leeyahay waxa uu garanayaa guurka iyo ahmiyadiisa iyo wanaaga iyo sida uu rasuulku calayhi salaatu wasalaam u yiri maxay tahay qof lamaano walba oo qaangaar ha guursadaan, ha loo guuriyo haddii aysan awoodin. waa gartay. Maxamed, adigu maxay kula tahay? waa salaam ya calaad adiga iyo runtii markii laga hadlo guurku waa arrin muqadas ah oo aad muhiim uga ah nolosha insaanka. waa tiir asaasi u ah jiritaanka mujtamacaadka kala duwan ee caalamka. marka sida ay idilba sheegtay diinta cadaysay waxyaabaha lagu doorto qofka, laakiin haddii aan xoogaa tafaasiil ah isku dayno inaan ka bixino, waxyaabo badan ayaa dabcan saameyn ku yeelan kara nolosha qofka insaanka ah guurdoonka ah. waxyaabo isaga markaas hore usoo maray iyo kuwo uu ka filanayo guurka marka uu galo kadib inay dhacaan. waxyaabaha marka inta badan laga digo waxaa kamid ah in qofku aanu intaanu guurka gelin ka hor kasii fikiro waxa uu mudan karo marka uu guursado kadib. haddii marka ay jiraan dhibaatooyin isaga haysta shaksiyan, sida inuu yahay qof gooni socod oo kale, qof dhibaatooyin gaar haystaan oo kale, inuusan ka fikirin in hadhow markuu guurka galo ay waxaasi xal uu iman doono oo ay arrintiisu xalismi doonto, ee uu ka fikiro hadhow markii uu guursado inay xaaladdu un kasii dari doonto. marka qofka aad raacaysaa waa qof nooca ah inaad marka fiirisid isku interest matiin, inaad ka fiirisid dhinaca commitmentiga iyo ka go-naanta qofkan inuu yahay qof nolosha kula wadaagi kara muddo dheer ama doonaya inuu kula wadaago, inaad ka fiirisid dhinaca classka iyo dabaqada iyo heerka aad kala joogtaan labadiina inuu yahay ama ay tahay qof isla jaan qaadi kartaan, inuu yahay qof daacad ah oo wax kasta runta ka sheega. qofku hadduu xitaa dhibaatooyin gaara qabo inuu ku wada sheegay iyo inuu qaar ku qariyay, waxyaabo badan oo tiro badan ayaa saameynaya. waa gartay. idil baan siinaya. idil, waxaad tiri aqoon baan ku dooran lahaa qofka haddaanu aqoon lahayn laakiin qaangaar yahay, guurkii u baahan yahay, awoodo ama uu shaqaysto oo lacag haysto, reer u baahan yahay, yaan la guursan miyaad leedahay oo aqoon ha laga raadiyo? runtii horta aqoontu waa furaha koowaad. maxaa yeelay qofku marka uu aqoonta leeyahay waxa uu garanayaa waxa aad ka mudan tahay, waxa uu garanayaa waxa ay maxay tahay shareecadeenu ka leedahay guurka, waxa uu garanayaa ahmiyadda iyo culayska uu guurku leeyahay. laakiin qofku marka uusan aqoon lahayn intaas oo dhan ma garanayo, waayo wuxuu ku fakarayaa keliya ayaama macnaha noloshaan iskaga jir raaxadan, kadib maxay tahay dee marba midii aad rabto iskala jaanqaad, maxay tahay kana fakari maayo. runtii waxaan guurku waa hawl adag, waa hawl culus, waa macnaha waxyaalo fara badan oo runtii qofka aqoontana uu ka fikarayo, weliba aqoonta siman karta aqoonta diiniga ah uu ka fikarayo ayuusan qofkaan ka fikaray. marka ani aad waxa ugu talinahaa runtii in la guursado qofka aqoonta leh, aqoontaas oo laba kala noqon karta naadi iyo diin. Maxamed, waa maqlaysaa idil, aqoonta iyo guurka iyo quruxda maxaa iska qoseeya kula tahay? dabcan dadka qaarkood way qabi karaan, aragtida insaanku way kala duwan tahay, laakiin mar kasta waxa ay tahay in la eega ayaa waxay tahay in labada qof ay yihiin laba qof oo iskabi kara. xiriirku ma aha wax xisaab ahaan sida aljabro oo kale la isula ekaysiiyo, laakiin waa wax
ay labada qof u sameeyaan inuu qofkani buuxiyo wixii uu qofkii kale ka tegay sidaasna noloshu ay ku buuxsanto iyadoon la dhehaynin 50 iyo 50 ama 40 iyo 40 laakiin qof kasta qaybta uu qabto maahana qofka kale uu qabto qaybta kale iyadoo la bixinayo waxa loo yaqaano tadxiya ama nafurid kadibna waxa la sameeynaya ay yihiin xiriir aan shuruud ay ku xirnaan marka waxa ugu muhiimsan oo mar walba qofku ay tahay inuu ka fikiro waxay tahay inaadan samaysan karin qodobo qoran oo rasmi ah oo hadhow qofka aad maxaa la yidhaahdaa partnerka ama jaalka ah ee aad nolosha ku darsan kartaa aanad u fiirin kana fig baan siiye intaa iyo intaana waad ku dhacday marka xiriirku in dadku ay u fahmaan inuusan ahayn imtixaan oo kale uu yahay wax dabiici ah qofkana dabcan dabeecadda uu wata waa dabeecadii hooyadiis iyo aabihiis ku dhaleen marar badan baa dadku waxay ku fikiraan xiriirku markii uu xumaayo tusaale ahaan marka hore xulashada kadib waa la isguursaday marka uu xumaado dadka qaarkood baa waxay ku ordaan markasta exit badhanka oo ah in xiriirkii dhamaado ama la isfuro markii wax khaldamaan taas lafteeda in laga sii fikiro intaan qofka la dooran ka hor aad iyo aad baad umahadsantihiin labadiinaba oo idinkaga mahad celinaynaa ka qaybgalka barnaamijka dooda gaaban idaacadda v o a laanta afka soomaaliga dhegaystayaal doodeenii gaabnayd oo dhex maraysay maxamed xaaji xuseen raage iyo idal axmed intaa haynoo joogto